daawadayaal habeen wanaagsan halkani waa warsanqaad media macluumaad iyo faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa haatan laga helayaa tiro madaafiic ah oo saakay aroortii hore lagu garaacay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir kuwaas oo dhaliyay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hoobiyaasha ayaa tiro ahaan gaarayay ilaa 8 waxa ayna qaarkood ku dhaceen guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah hoobiyaasha uu ku dhacay guryo ku yaala xaafadda Tarabuush ee degmada Wadajir waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad isku qoys ah oo deganaa guryahaasi sida ay inoo xaqiijiyeen ilo dad deegaanka ah. dadka dhintay waxaa ka mid ah hooyo xaamilo ahayd oo isbitaalka ku geeriyootay waxaana sidoo kale dhaawac soo gaaray 4 qof oo kale. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in madaafiicdaani laga soo tuuray dhanka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir halkaas oo ay tageen xubno ka tirsan al-shabaab. saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xubnaha fuliyay weerarkan ay wateen gaari isla markaana ay hoobiyaha la fuuleen buur ku taala degmada Kaxda kadibna ay sidaasi ku soo duqeeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaala caasimadda. waxaa sidoo kale degmadaasi tagay ciidamo booliis oo uu hogaaminayo taliyaha qaybta galbeed gaashaanle Maxamed Cabdulqaadir Nuur Geedi Mooshin waxaana ilaa iyo hadda ay howlgallo ay ku baadigoobayaan xubno al-shabaab ah oo ay ka wadaan halkaasi. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa dhankooda inoo xaqiijiyay inay arkeen xubno al-shabaab ah oo saaran buurta kadibna ridaya hub culus taas oo keentay in cabsi xoogan ay dareemaan shacabka oo mar dambe iskugu soo baxay banaanka hore. xaaladda ayaa hadda ah mid degan mana jiro wax faahfaahin ah oo ilaa ay hadda oo habeen ah ciidamada booliisku ay ka soo saareen howlgalladooda iyo weerarka ka horeeyay intaba. marar badan kooxda al-shabaab ayaa sidaan oo kale hoobiyaal ugu garaacay caasimadda waxaana lagu bartilmaameedsaday madaxtooyada iyo xirada Xalane. si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay ee kooxda qarxiyo ka fulisay gobolka Banaadir waxaana u dambeeyay weerarkii ismidaaminta ee jimcihii la soo dhaafay ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan isgoyska Sayidka.